akhdaa'da dadka khudbada soo tukado ay galaan waxaa ka mid ah oo ugu horeeya khudbada jimcahaba in laba istihaanaystaba oo qofku iska fududaysto oo isagoon cudurdaar haysanin jimcihiba uu iska daayo isaga tago arinta ayada waciid weyn baa ku soo arooray nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay man taraka 3 jum'in tahaawunan dabaca Allahu ala qalbihi 3 jum'a oo isku xigta qofkii ka taga fududaysi uu arrinkeeda fududaysanayana oga taga ilaahay baa qalbigiisa shaabadeeya khayr ba inuuna gelin baa lagu shaabadeeya wal iyad billahi ta'ala balufir la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'a illa dabaca Allahu ala qulubihim aw kama qala salawatu rabbi wa salamu alayhi qom way ka harayaan way iska deynayaan inay ka tagayaan jimcooyinka wa illa haday deyn waayaan ilaahay qalbigoodu sharaya qalbigaaga in la khatimo oo shaabad lagu dhufto inaanu khayr ka gelin ah wax sahlan ma ah qof qalbiga laga khatimay khayr gali maayo wal iyad billahi ta'ala akhdaada waxa kamida walaalayaal dadka qaar kamida inay jimcaha isaga yimaadaan si iska caadi ah caadi ka dhigteen maalinka jimcaha la joogaaye iska labiso masaajidka iska aad maya haday saa ka noqoto waxba ajir ka helimaysid waa inaad fadliga maalinka jimcaha ogtahay waa inaad ajirka xisaabsanaysid iyo khayrka ku soo arooray waa inaad ku xisaabtamaysid waa inaad shicaa'irta islaamka kamida weynaynaysid oo qalbigaaga uu ku weyn yahay oo soo socodkaaga iyo fadhigaaga iyo noqodkaaga iyo dhageysiga khudbada aad dhageysanaysid aad ilaahay ka ajir xisaabsanaysid subhanahu wa ta'ala marka waxa weeyaan innamal a'malu binniyat nabiga sallallahu alayhi wa sallam saasu yiri a'maashu waxay ku dhacdaa niyooyinka hadaada waxba niyeysan waxba ma lihid hadaas niyeysato waxaad niyeysatay baad leedahay walaalayaal akhdaada waxa kamida jimcaha in la soo xaadiro qofka inuu fududaysto maxaa laga wadaa nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi saan ku soo marnay fadliga salaada jumcaad wuxuu yiri maalinka jumcaha albaabada masaajidka albaab ma jira ilaa malag baa fariisanayo buug iyo qalin buu wataa diiwaan qofka u soo horeeyo soo horgala masaajidka wuxuu u qorayaa sidii isagoo ilaahay ugu dhawaado sadaqaystay neef geele kii ku xigay neef lo ah kii ku xigay neef ariya kii ku xigay digaag kii ku xigay ukun imaamku mar alla markuu minbarka fuuluu yiri malaa'iktii way laabayaan buugaagti way fariisanayaan dadkay dhex fariisanayaan khudbada iyo wacdiga dhageysanayaan intaas kadib qofkii soo gala waxba ma leh ha mehelin marka intaas oo khayra in badan oo dadkeena kamida ilaa man rahim Allah way dayacaan waxaad arkaysaa khudbadii socoto baa la imaanaya masaajidka khadiibka markuu istaagayo waxa laga yaabaa inay haaf fadhiyaan haafka kala gadaal bay ka yimaadeen dad baa waxa way aakhir qof yimaado weeye wuxuu fariisanayaa meesha laga soo galo wa awwalu man kharaja subhanallahi alazim maxaa soo doontay maxaad raadinaysay maxaa wixii ku waday soo khayr maadan doonaynin maxaad naftaada u xasdaysaa oo naftaada u xaqiraysaa oo khayrka isaga bakaylaysaa marka khudbada in loo soo kalaho oo loo soo dheereeyo bay ahayd masaajidda iyo meelaha khayrka ka jiro hadaa timaado saacadu markay tahay 9 subaxnimo meel heli maysid waa buuxaan laakiin waxa weeye adduunyadii baa maaragtay runtii dadkii la tagtay oo qulubteeni la tagtay waxa weeye marka khayrkii iyo daacadii ilaahayba meel uma haynaba qalbigiiba adduunya ka buuxdaba inta yar ee qofku khudbadu u aaday maalinka khayrka waxa weeye waxay ku tahay kodol dhibaato culays arrinkan akhdaada dadka muslimiintu ay galaan oo loo baahan yahay laga waantoobo yey kamid tahay walaalayaal waxa kamid ah akhdaada waxa kamid ah masaajidkii oo banaan oo horay ay banaan tahay oo soo marnay qofba qofka kale intuu khadiibka ka xigo inuu ka ajir badan yahay laana uu ka soo horeeyay ayaa waxaad arkaysaa gadaal baa la fariisanayaa darbigi baa lagu tiirsanayaa dhalinyaradii halkaas lagu hanta la fisada saas leeyahay mujid akhdaada waxay kamid tahay dadka muslimiintu ay galaan soo hormar oo hadaa timaadid meel horo banaan soo buuxi oo soo dhawow oo khayrka u soo dhawow nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi waxa ka sugan
qoom baa ilaahay dib dhigaya oo jannada ka daahinaya ayagoo ahlu janno ah maxaa yeelay jumcada iyo jamaacaadka ay ka daahayaan darteed oo aanay u soo dheeraynaynin. akhdaada walaalayaal waxaa ka mid ah maalinka jumcaha la galo qofku inuu intuu yimaado meeshii oo ka buuxdo uu dadkii soo dhex jiiro oo soo ciriiriyo oo garbahoodii ka soo tillaabsado oo kala durjiyo baa ka mid ah. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa diiday. nin baa yimid oo gadaal ka yimid masaajidkii markaasaa wuxuu bilaabay inaad dadka ka soo tillaabsado markaasaa wuxuu ku yidhi ijlis faqad aanayta wa aadayta, war fariisuu yidhi waadna soo daahday dadkina waad dhibtay buu yidhi. daahid iyo dhib baad isku darsatay, lama ogola. marka culammada qaar baa le qofku hadduu arrinkaas sameeyo khudbadiisii maalinkaa waa burtay. saasay leeyihin culammada qaar ka mid a xadiiskaasayna ka qaadanayaan. waxaa ka mid a walaalayaal akhdaa'da maalinka jumcaha dadku ay gelayaan waxaa ka mid a khudbadiioo socoto hadal waa cadamu ihtimaami istimaaci alkhudba. waa la hadlayaa, mid baa laga yaabaa inuu mid kala salaamo, lama ogolo. salaan lama ogolo, kaman radin kartid hadduu ku salaamo. xataa hadduu wax ku weydiiye ha uga jawaabin, isagay ka burtay adnayu kaa burin. waxaa masaajidka nabiga calayhi salaam nin saxaabi ah soo galay, rasuulka ilaahi dadkii wacdinayo aayad qur'aan uu akhriyay suuratu baraa ku jirta nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ubay ibnu kacab buu nin u tegey, wuxuu yidhi ubayow aayaddan xaggay ku soo degtay, goormay soo degtay? ubay indhuhu intuu ninkii ku gubay wuu ka sii jeestay, mar kaluu ku celiyey indhuhu ku kuuray wuu ka sii jeestay. salaadii markii ay dhammaatay buu u tegay, wuxuu yidhi ubayow maxaa saasay u gashay? cilmi baan ku weydiiyey, qur'aan ilaahay baan ku weydiiyey, maxaad iiga aamustay? wax khudbahood maanta leedahay ma lehe ku bishaaraysuu yidhi. khudbaba ma lihidba. ninkii waa xanaaqay, waa naxay, rasuulka ilaahay buu u tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. rasuulka ilaahayow anigay ubaya sheekadaasaan dhex martay buu yidhi. saasuuna igu yidhi. nabigu calayhi salaam muxuu yidhi sadaqa ubayun sadaqa ubayun sadaqa ubayun. ubaya run buu sheegay buu yidhi. hagee kaa mara cilmiga la sheegahayy? qofkii quruuraxa masaxo khudbadii baa ka burtay baa la yidhi. bal hadal adigu iska daayey, qosol iska dhaaf adigu. ma ujeedaa dad baad arkaysaa tusbax buu iska haystaa, saasuu leeyahy maalinka jumco weeye. labaa sheekaysanayso, telefoon baa usoo dhacayo, waxaa laga yaabaa inuu calal aqal markuu fiicnaado telefoonka fiiriyo saa yidhaahdo. haddii kale intuu qabto le war khud baan ku jiraa, khudbadaadi waa burtay. lama ogola. marka kullu dalika waxaa loo yeelayaa qofku inuu khudbada dhagaysto, inuu waxa la sheegayo dhagaysto, inuu khayrka weeleeyo oo ku camal falo.